xuska munaasabada dhalashadii nabi maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa haatee waxay xalay ilaa iyo maanta si weyn loogu kala xusayay magaaladan Boorama iyo guud ahaan gobolada Awdal iyo Salal. munaasabadahan waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin kala duwan iyo dadweyne aad u fara badan kuwaasoo ku faraxsanaa xuska munaasabada dhalashada rasuulkeeni suubana Maxamed sallallahu alayhi wasallam. munaasabad kamid ah munaasabadahan waxay ka dhacday hoteelka Rays ee magaaladan Boorama waxaana soo qaban qaabiye Sheekh Xildhibaan Axmed Yaasiin Sheekh Cali Ayaanle waxaana ka soo qayb galay culumaa u diin waxgarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan gudaha magaaladan Boorama. munaasabadan waxaa lagu soo bandhigay taariikhdii nabi maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa haatee waxaana ugu horeen ka hadlay Xildhibaan Sheekh Axmed Yaasiin Sheekh Cali Ayaanle waxauna ka waramay ahmiyadda ay leedahay xuska munaasabada dhalashada nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam. عقل السليم يعلم المتواتر كتب القطع إن ما علمت النبي محمد بشير أي بركة جلس يش كشيء كره والله هذا محل نسبة صحيحة حديث في حديث رسول الله وقال لنا بس صوت رسول الله بشير اللي كود لي حاول صوت هو ما لنا بشير إذا هو كل سنة محمد بشير ولما هذا السنة عادي يقول لنا يا إنه النبي هناك قليل ولو عقيقة وهو قشيء وانقشنا مركز المه بشار رجوا وانقراوات كان نبينا صلى الله عليه وسلم عليه هو يعزي مطلب محمد مدعى محمد به فضلنا بين الوجوه وانقروا محمد به وانقشنا ما صار مطلب هذا قف في هذا المكان فيه لأنه وجدين تدريسين زي ما قالوا كذا اللي هو يسبب ناس وغريبة طبعا يدعى أكشن لمساكين ما كان يدعى فيته حضور النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقطع الدرشة يسير يدعى عن يوم صحيح كان نوع الله waxaa sidoo kale munaasabadan ka hadlay gudoomiyaha maxkamadda degmada Boorama Sheekh Maxamed Saciid Saaweer waxauna isna hoosta ka xariiqay inay muhiim tahay xuska munaasabadan dhalashada nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam. ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay inuu naga dhigo kuwa nabiga raaca يعني هو طريقي سمرة الدنيا أنا واللي بعتبرته كحضرات كي وفربرتها إلى هاي البلديوم عبد الفتاح أحمد مقالة بورما.